وناجا بس لكن ممكن يروح حاسس سمير ووح آد لوجا قروح بديه waxaan ku leeyahay haddaad ka sii darto rag baan nahay nin ragu ilaahay gadhay saleebaan dheer sheekada ka saar oo raxmo kaba saar kuma jiraanba labadeenina taagan tahay meesha adaa ku bi adaa ku hoog adaa ku kalaan kali soo xad garatay ma anigana mar dambe haddaad ii soo joogtaa ama afkayga soo gasho war intan ka aamus kari oo ka aamusan intan afkayga qabsan kari oo qabsan soo xad garatay ma haddaad sii jawaabtad hadalka sii jaqjaqdo anna adan ku jaqi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أدبنا السلام يا ملك استوديو دعوانيسان مقالكم waxaan ugu talagalay inaan ka yareeyo leeyahay Cabdiraxmaan Furinle ortaragunii waa kuwiis qadariya oo kuwiis xushmeeya hadii xitaa xaggo dhinacooda ama dhexdooda xurguf ka dhacdo ama xumaan soo kala dhaxgasho ninka ragga wax lagu yaqaan inuu tanaasulo ama uu maxay ahayd ka aamuso ama uu intuu iska qaban karayo iska qabto taa macnaheedana wax kale uga ma jeedo furlowda ogeydeen TikTok waxa uu ka sameeyay iyo waxa uu ugu talagalay inuu sameeyo orto already aniga waxa kastood ku hadashaa meel dalooshiga ma geliso balse laakiin waxa ay gubaya bulshada igu xiran dhinaca wanaagsan iyo aragta inay dhinac xun iyo arkaan ama dhinac qaldan iyo arkaan alxamdulillah intii maskaxiya garaad wax walba ay fahmayaan wax walba ay garanayaan mar walbana way ila soo hadlaan waana ila soo xiriiraan oo wax kasto dhacaya halka way kala socdaan balse laakiin inta sida kale u qaadatay ama sida kale u fahantay dhaleecooyinka iyo hadallada iga soo gaaray waxa kamid ahaa in yaani dadka qaar horta qaarbade dadka horta saddex qaybood oo kala baxeen qaar baa Saleebaan Dheere raacsan qaar baa Furinle raacsan qaar baa aniga i raacsan marka dadku isku wada fikrad ma saaray shanta faroosin baan dadku sinayn qaar baa yaabanba dhinac ay raacaan bal oo san shantii faroos dhama ka saaro leh imka dadkan waa weyn may weelan yihiin weligeed baa la arki jiray laba qof oo xitaa islaaya ama isku dhaca in ay kala aamusaan wad ogeydeen anigu waan aamusnaa hana aamusnaadeen maxme afkayga waan gaabsaday ugu horeyn horta sheekadu waxay ku soo bilaabatay sidii ay u dhacday ayaan jeclaynay ayaan rabaa inaan idinku sheego wax kasta aad idinku marka maskaxdiina aad ka imagine gareysaan ama aad ka qiyaastaan waa ka horbarda kamarada nooxa doqsigan ma Furinle soo dirayniyo no qaar badan Furinle soo diray baan arkayo midiisitay oo haddana soo garaacay guri saaxiibaan ku soo shaabaxay wallahi billah waxa ka soo qaadmayna haddana waxaan jecelahay muhiimadda iyo hadalkayga aan u leeyahay ma jecel inaan ku sii dheeraado inaan idinka sheekeeyo waan karaa maanta inaan kan yar karbaasho aan heeso u soo qaato aan hadallo hore loo iri ugu udhiraahdo aan maxay ahayd waxaan doono wax ilaahay noo fudeydiyay hadal baa jira hadal baa jira alxamdulillah noo leenahay maanta kari waay ma inaan karbaashan hadal u karbaashan si kasta u karbaasho balse laakiin haddana waxaan ka raacayaa wanaagan ka raacaya raganimadu waxay tahayna waan aqaanaa laabtan ku sitaa soo xad garatay ma iga raali hadalkaan idin dhameystiro sheekadii markii ugu horeysay waxay ka soo bilaabatay inaan kan yaree Furinle leeyahay ama Cabdiraxmaan Furinle in ay Raxmad Roos horta sheekadu waxay ku saabsantay waa inaan Raxmad Roos maan jeclayn inaan Raxmad Roos inaan soo qaato ama aan yani waa inaan walaashay kala wallahi billahi wa ta'ala ma jecli inaan ila dhalatay oo walaashay in laba meelood saa loo yar wareejiyo in yar ma jecli inaan Raxmina waa sidaas oo kale waa inaan walaashay kala ila dhalatay balse laakiin haddana dadka sharaf iyo waxa yani adu u arkaba inay qalad tahay horta waa qalad ha laakiin haddana Raxma lama caayayo sida hablaha qaar lama soo qaaqaawino Photoshop lagu soo sameyn lama soo caayin khalad kale lagu ma sameyn kaliya laakiin waa sheekada yar foosha xun leh sida xun u yara dhacday taasna duruuf baa keento duruuftan inaan ka yara Cabdiraxmaan Furinle leeyahay oo boonbooninayo oo wada sheekada weeyaan sheekadu marka aad arkayso in xurguftaan ay qurux badnayn barteeda lagaga haraa wana la iska aamusaa balse laakiin uu sii boonbooninayo wax kastaana adduunyada boonboonis kama soo dhaan maanta hadii barkimada aan isku dayno boonbooniyo waxaan ogahay inuu musabixi facebookiisa soo dhiganay ogahay barkimada xabayaan hadal idinku daalay sheekadu waxa u dhacday sida tan Raxma iyo Furinle way shaqaynay san filayo inanka waxay isbarteen Saleebaan Dheere markii uu TikTok soo galay uu soo shacbaxay niyo doqsigan ma Furinle soo diray uu soo shacbaxay ay isbarteen Raxmad Roos markii ay isbarteen anagu Furinle hortii baan Raxmad Roos isbarnay Furinle hortii Furinle aan ahayn Saleebaan Dheere la aqoon ayaan isbarnay anu wallahi bay iga tiinaan ku faaneen ana ka hor caanayo ana caan ka hor noqday waxaas waa ceeb weeyaan xnin rag uu yiraahdo ma baahaba laakiin wuxuu ku faanay waxaan ana ka hor barto bishii sanaad sano maxay avocado ku soo shaabaxayo
waxaas ka bax raganimadu kuma jirto raganimadu soo bar waxay tahay furinlow markan uu sheegayo adigaaga laftarkaaga furinlow raxmaroos annaga isa ka horbaranay taas wax weyn maaha waxna kama soo qaadayo markaan boorama tagno dee waanu la kulano waa inantaa social media nugla jirta walaasheen ee maxaa ahaday sida wanaagsan aan isku barnay sida wanaagsan aan isku naqaano weligeena xurguf iyo xumaanna soo kala dhexgelin waxaa jirta haddaba sanadkii hore ahayd waxaa jirtay waxbaan hadalad ku daalin ma jeclaan hadalad ku daaliyo haddaba furinle anu sheekada halkii maris wiga khalkhashaybe ha inanta qofka intaa doontaan maad istaqaanaan maad sanado istaqaanaan muhiimadu kolba qofkan waa waxa idin dhex mara ama sad wax isku fahantaan haddaba Saleeman Dheere iyo inantan iyagu muddo yar yaqaanay ayay wax dhex mareen dee waxaasna horta waa dee isaguna waa nin rag iyaduna waa gabadh dumara oo dee gayaana weyskeeyaan wixii kastaa dhex mari kara yacni wax kale kama jeedo waxaan ka jeedaa xiriir markaa xiriir jacayl ayaa dhex maray iyada iyo raxmaro isaga iyo raxmaroos haba dhex maray ma xumeen Saleeman Dheere kulankaygii ugu horreeyay furinle kadalik aniga furinle berberka xagan hargeysa ka baxnay berberaan tagnay Saleeman Dheere berberan ugu yimi raggii siday caadiga isugu hayeen ayaa waxa uu arkay furinle arkay WhatsApp-ka maxay ahayd Saleeman Dheere oo galay waxaanu u sii raaracay qaybta ama luuqa raxmaroos ayuu sii raaracay waxa uu arkay waxyaabo aan siri isaga la qurux badnaan waayay oo dee laba qof oo xiriir ka dhaxeeyay wixii ay isku oran lahaayeen iyo ayuu arkay uu u qaadan waayay dee waxaan oran karaa un markaa furinle isaga markaa jecel inantan raxmaroos jecel taas macnaheeduna dee waad ka arki kartaan oo laga dareemaya qofka marka uu wax wada moogtay hadal intiisa runtaa baa laga qaataye waxa dhacday dabeeto ninkii furinle wax bilaabay Saleeman Dheere inuu afka u taagaba markaan badda kasoo baxnay aan mermerne aan caadiga ahayn aan isku shantii galabnimo meelaha intii ka horsoo dhan caada lahaa markii kowdii aan galnay berbera kowdii kasoo bilowday ilaa labadii ilaa saddexdii ilaa afartii waa la dabaalinayay kowdii iyo barkii meelaha waa la qadqadaynayay ilaa labadiina aduu berberaan iskeernasanayno meel hadhan iyo wax ma iska fadhiisano saddexdii aan badda galnay ilaa afartii intaa caadi baa lahaa ciyaartu waxay bilaabantay furinle mixnadiisu waxay bilaabantay markii lasoo meedhay biyi badda laga soo meedhay ee lasoo noqday moolkii furinle uu ka qaaday kii Saleeman Dheere uu ka qaaday uu arkay waxan ay sheekadu bilaabantay ilaa maqribkii intii ninku afka ha buuro hadalka ha gaagaabiyo live buu galay intii ogeyd baa laga yaabaa live buu soo galay furinle halkii uu isku boojeeyay isku dhaafiyay uu yacni isriyaan laga dareemay aanu intaan saaxiibkii waan dareensanay waan fahansanay wax walbana waan la socdaa ninka arkay inuu Saleeman Dheere WhatsApp-kiisa galay wax ka eegayna anigu ahaa haddaba maxaa ku kalifay inuu WhatsApp-ka Saleeman Dheere iska galo kayga muu galo inamada kale nala socday kuwooda muu galo maskax baa loo baahan yahay anigu badana live kuma badni TikTok kuma badni live kuma badni Instagram kuma badana live ka galgala waxa dhacday furinle iyo Saleeman Dheerena waxay aad live ugu badan yihiin xagga TikTok-ka haddaba live marka ay soo galaan Saleeman Dheere iyo raxmaroos yacni sidii laba qof oo wax ka dhaxeeyaan ay sheekadu u socotay ninkan furinlena uu soo geli jiray uu la geli jiray uu ka dareemi jiray uu fahmi jiray wax walba isagoo sheekada xanxan ku hayo wax dardareensan dee maanta anigoo sahayb hadan inan ku wareegay inantaana aan qof kale uga shakiyo dee qofka inaan baarbaaran daba galo ayaa dhacaysa marka ninkanan markaa dee markaan berberi sugu nimi nin maba sababtaa soo yidhi furinle wuxuu isu idin dedejinayay berberi nagey xitaa Saleeman Dheere wallaahi billaahi anu maan ballamin kumaan odhan Saleeman oo saaxib berberaan iman nahay noogu kaalay sheekadaba ninka ka dambeeyay waa furinle marka waxaan u arkay inuu ninkan uga golleeyay inuu WhatsApp-kan ogaado raxmaroos wax isku leeyihiin markii uu xaqiiqadii dhabtii ogaadayna wadnaha go-ay dhimashadii maahay laakiin uu ka naxay markuu ka naxay wuxuu yidhi haddaba maxaad wax ku kulaylisaa maxaad sheekada kaga bilowdaa maxaad samaysaa gabdhuhu badana way qalbi jilicsan yihiin maanta hadduu ay arkaan ama uu helo nin afmiishaar oo waxaan ku idhi af macaani iyo nin lacag sitaaba dee hablaha badankooda ma sheegay laakiin qaarkood dee waa u janjeersamayaan runta marka laga hadlo raxmo ahaan anugama jeedo balse laakiin furinle ma aqaan raxmo wuxuu ku akhriyey ma aqaan wuxuu ku sameeyey ma aqaan wuxuu maxay ahayde ugu sheekeeyey ma Saleeman Dheere u nacsiiyey ma Saleeman Dheere xumaan uga sheegay ma isagaa ku anaa ku jecel ma wax kale uu ku sheekeeyey garan maayo horta balse laakiin sheekada waxaan ku baraarugay annagoo ilaa 3 shahr Hargeysa joogna iyo furinle maxay ahayde iyo raxmaroos isku nabtay isku nabashada isku nabteen maan ogeyn anu laakiin ninka isaguna dareemay ee ogaaday Saleeman Dheere aha haddaba sheekadu haddana waxay sii kululaan doontaa markuu furinle igu yiri saaxiib boorama doonayna inaan tagnee boorama safar boorama inuu qaban qaabi wallahi masaasa
war saaxiibaan ku saaxiib ma xume anu baboor waan jeclaa inaan tago safradii hore kuma jirin waan tagaynaa goorma tagnaa wuxuu khamiistan tagaynaa khamiistii isla khamiistan berbera ka nimi khamiistii ku xigtayba wuxuu doonay inaan boor ma tagno raxme roos waa wallahi oo billahi oo tallahi iyadana maan balamin anigu balse laakiin ninka ballamiyey furin looha halkaana waxbaad ka dareemi karaysaa marka uu ballamiyey raxme roos furinle marka uu ballamiyey raxme roos aniga lambarkayga way haysa aniga iyada waan hayay keeda markaan saa boor ma u galnay waxa dhacday inay raxmi soo garaacdo lambarka furinle u xidhnaa lambarkiisu raxme roos baa aniga soo wacday waxay ku tiri walaal maydaan soo gelin doorkii hore aan boor ma tagnay intay soo garaacday iguma odhan maydaan soo gelin waan dee anu waxba kama soo aqaan dadka hadalka u fiirsadana miyi balse laakiin haddii ay wax dhacaan dadka hadalka xasuusta ee isku daya inay fahmaan ayaan ahay markaana jawaab qurux badan usoo baxdo dee iminkana waa tan jawaab qurux badan isoo baxday ah inay xitaa raxme roos dee furinle kulli waa dareemi karaysaan ceebna ma haddii laba qof oo wax isla ogaaday haddaba jabo ka dambeeya ceebta ugu weyn way soo socotahay waxaa dhacday raxme roos markay soo garaacdaan ku yidhi walaal guri baan tagnay maxay ahayday waan qadaynina hadda ilaa hadhowan magaalada soo gelinaa marka cadceedu yaro kala qabowdo oo furin lame furin la walaal maanu kiisi maclamarkiisi maanu caadayn wuu xidhan yahay haa muu xidhan yahay haddaba uu imanaya malaha suuliga yaxu yar gale horta qolkan ku jiray nalamu joogin yirsu markaa waxaa jooga canaantas masubeer aduu rag badan baa nala socday iyo laba inamoodoo midna reer laascaanadiya midna reer garoowe yahay kano iyo sidoo kale sac flogs war waxaa dhacday jabo ka dambeeye furin laa soo galay raxme roos garaac raxme roos garaac raxme roos de saasaan u eego waan yaaban anu intaan nin yaaban baana waran qadayna horta hadhowaynu tagaye iminkaynu tagaynaa subeerka hali gaariga noo stag waree dhama riyaha iyo nagafka xilligaa iska dhaqdhaqaaqo iska socdoona aduu ninkii waa la yara joojiyo naga daa baa lagu ridaan qadayn iminkaan soo galnay waa kulayla saatay horta aduu waa la yara caadu iska dhigayo us dareemo waan qadayno waan iskayar nafisnay haddaba isaga iyo kaano ayaa naga baxay wabay soo xiirteenba anuna saasaaska aha wallahi aanan xiirasho xitaa dan ka lahayn wabay soo xiirteenba oo ninkan furin lama xiiran jirin suuqa hargeysuu dacas ku mari jiray kaba sandale ku mari jiray maxaa qaldan su-aasha mar dambean isweydiiyey laakiin markii ismaan weydin sababta waxaan kasoo qaadayo nin de yacni dalxiisayo oo magaranaysa naashnaasheynayo oo magaranaysa oo wallahi inaana been sheegayni koor suulan xidhnaa aygu saaxib bal waxaan xidhanahaye koor suulkaaga saaxib madii dhiibi haabaan ku weriye saaxib hoo waan iskagu ciyaaraya iska daawi guur oo wallahi tilaa carabka qalajiya waxaa dhacday waxbaan hadda idinku daalin aduu calaamadahaas oo dhan dila calaamadaha dareemaysaa moogtay qof weynna waa to maskax leh waxbaan dardareemay waxbaan idinku daalin waan dhaqaaqnay inantii raxmaa meel lagu ballamisay qof boor ma kala garanaya ayaan ku nidhi walaal halkee halkaan noo tilmaan kaalin bay nagu sugaysay waan ugu tagnay waan qaadnay haddaba hadalkayga bal intan u fiirso anigu waxaan fadhiyey noohadaanu saarnayn anigu waxaan fadhiyey aniga iyo kaana inanka la dhaa iyo inanka sac flogs la dhaa waxaan fadhinay shirka dhexe ayaan fadhinay shirka dhexe ayaan fadhinay iyo yacquub yare 4 nin baanu cidhiidhi baan ku jirnaa shirka dhexaan fadhinay inkastoo yacquub yare yar yahood iska caadi ahayn halka horena waxaa fadhiyey cadnaan tasma iyo inanka gaarigooda subeer ahaa halka dambana waxaa fadhiyey raxme roos iyo furinlo keliyaad raxme roos iyo furinlo oo keliyaad aa fadhiyay halka dambana dadkani dareen may qaadan anu laakiin haaf dareen baan qaatayo waxaan yaabanahay dadkan cidhiidhigan dhexdan ku jiray iyo halkan dambe lagu nafisayo hayo waxba kamaa soo qaadin inantu waxay sidatay iphone 11 bay sidatay ninkan furinlo waa qaaq samsung bel iska sitaa dabeet waxaa dhacday haddaba waxaa markan jaamacadda camudta soo gaarnay jaamacadda camud markaan soo gaarnay aniga iyo cadnaan tismo iyo raggii kale gooni baan isaga baxnay oo haddaba furinlo wuxuu soo reebtay inanka kaana la idhaahdo ayuu soo reebtay oo mobilkii iphone-kii raxme ay lahayd u dhiibay kadib wuxuu ku uri fiidooye naga duudub wala oo nasa sawirkan saa goorta la galay wallaahi baanan garanayn mabaan joogin ba halka ay ku geliyeen dee jaamacadda camud marka saa loo soo galay saasaa loo kala foof tagay midba meel buu galay ka mobilkiisa sita ka kamartiisa iska duubanaya cadnaantas ma iphone-kiisa iska duubanaya midba wax suuqan waxaan iska sii galnay loogadii taaladii camudi iyagu haddaba taalada xitaa maba heleyninba say wuxu duubayeen waan kusoo noqdaayo mise waaba labadii halkii taagan waan soo gacmaha la isaystaayo sawira la gelgelayayo haddaba hal mid baa jirta furinle wuxuu ku andacooda u yihi markuu Saleeman Dheere soo hadlay dee ragguba keligii limaan gelin sawir waxaa la galay saanjaa la galay oo fiidooyin la duubay markaa fiidoogan la duubay idinku wada aragteen baa laga yaabay waa mid uu yacquub yar xitaa nagula jiro ayaan la duubay oo iyo cadnaantisma xitaa isaguna fiidoo la duubo cadnaantisma ay ka codsatay inuu hees u qaado iyo sidoo kale maxay ahayd sawiran ay la galeen youtube-kayga xitaa weli maan soo gelin vlogga laakiin waa soo gelinay waad arki doontaan
laakiin iyagu eeg raxmaroos inamada kala sawiraan way wada galeen caadi waa dad walaala ah oo dee social media ku jiro sawir waa la wada geli karaa soo waxaad garateen ma sawir haddaba ha la wada galee dee qaab loo galo ayuu sawirku leeyahay maanta haddaan u galo sawirka tabta lamaanaha aan inanta dhexda iskaga marmaro aan garabka saa gacanta u saarto dee waxaa la odhanayaa waxbaa jira halka waxbaa ku jira laakiin haddaan inanta saa u eeg istaago iyaduna eeg istaagto aan sawirkiina laga wada qaado waa dad walaalaa waxbana laga soo qaadi maayo dad walaalaa waxaan ahayn waxba kale lagu dari maayo laakiin haddaan saa gacanta ku dhaadha walaal aan saa tiraahdo ay loof kaa samayso ay ma jeclin hadalkeedi ku daaliyo sheekadu saasay u dhacday haddaan idiin sii wado markaanu soo noqonay inanta raxmin ay tegaysay lahayd waan tegaya horta waxaa jira waxyaabaha qaar aan la sheegin waxyaabaha qaarna ma qurux badna in la sheego qofka xitaa haddaad islaysaan maaha hadduu xitaa adduunka kugu necab yahay waxyaabaha qaar baa raganimadaada lagu xeeriyaa moogti ma jecli hadalka inaan intaa u dhaafo balse laakiin kuwaas waa wax la sheegi karo iska caadiya social media imka ka dhex socda tusaale ahaana ka ah in ninkaa furin uu sidaa yahay haddaba sheekada ugu daran iminkay taagan tahaye waxaa haddaba dhacday markaan boor masaa uga soo noqonay ayuu ninkii furin la arkay sawiraanta statuska soo dhigdhigay weliba eegada inantumay soo dhigin furinla statuskiisan ku arkay anigu whatsappka furinlaa soo dhigay sawirka ay saa wada yihiin sticker loofu soo raaciyay iyo waari yaroo kelmadii wixii taa ma xasuusto waayo dee muhiimad bi mu ahayno yani ma wax weynba kamaa soo qaadin waan akriyay waan iska dhaafo kuwii ku xigaan iska sii da laakiin qofkan kale xidhiir kale uu ka gubanaya maaha u xanaaqaya furin la hadlay waxay furin loo saaxiib waxaad sameynaysaa waxay ka daba baxad saaxiib ku sameynaysaa adigu waxay isku hadleen furin Saleeman Dheer waxyaabo yar biga sheegay oo dee xitaa furin siduu ugu jawaabay aanay wax qurux badan ahayn qofka xitaa markaad ka khaldan tahay si qurux badan baa loola hadlay laakiin si qurux badan looma hadlin waxa dhacday wax weyn hadal idinku daalinay ninkii Saleeman Dheer la soo hadlay Sanchez Ahmed la socday hawl la socday saaxiib tey saaxiib waxaan dhacay waxaan jira waa maxay horta Saleeman Dheer sir rag ila hadlay si qurux badan ila hadlay waxaan ku saaxiib arrinta deji baan ku rag social media ku jireenahay rag la garanayeenahay rag ma garanaysaayay inan iyo dee ma garanaysaayay in waxaan ku ceebownina oo wax aad iyo aad looga qurux badan horta arrinan aad uga baqay oo tan imka dhacday ayaa dhacday arrintan aad baan uga baqay dee waana dhacday imka marka horta caanada tidabadood la qabay furinle wuxuu u qaylinayo uu video soo duuduubay uu 17 mir iyo 25 video 17 mir iyo video kala 12 mir 14 mir oo igaga soo jafay uu Saleeman Dheer ku jafayo uu leeyahay halkaad gashaan oo waxaad sameysaan horta niyo bootadu halkaa ma gaadho laakiin gacanta halkaa way dhaaftaa soo waxaad gartay ma waxbeenada idinku daalinay Saleeman Dheer hadalkiisa ay guuri waxaan ku saaxiib deji sheekada waa inan kala wada heli kartaa wax weyn maaha haddana laakiin dee dooqa cajiibay haddii dooqa ka galay adina inta ma garanaysaa wax idinka dhaxeeyay xitaa wax idin socdeen dee inan aad isku ahaydeen laba qof xiriir leh dee waxaan Saleeman sameeyay furin oo wax xunay wax saxna ma aha bal saaxiib sheekada ana galiyay isug baan ku saaxiib isla daqiiqadii furin la hadlay furin la saaxiib waxaan dhacay baan ku imkada message intustoona haddii aad dalbataan wallahi video kala soo sameynaya okay whatsapp waxaan ku wada hadalnay xitaa heer waxaan kala gaadhnay uu aniga iyo caayo iyo aflagaatiyo balse laakiin anu aanan caayinaan aan aflagaatiyo qofku markuu xanaaqana wax turxaan uu ka soo dhici karaa way jireen waxaas ha kadib Saleeman Dheer waxaan arkayba isla bernimadiiba video soo duubay uu leeyahay gabadhaydu iga qaaday samigu sameeyay Saleeman Dheer horta wuxuu sameeyay wax qalad ay hayeen 100% saaxiibkiisana taawan u sheegay waxaan leeyahay saaxiibtaas qalad been anigu sheekada waxaan u dhex galay inaan wax dhexdhexaadiyo aan wax kala maslaxo aan wax kala dejiyo balse laakiin halkii dambe ka xumaatay sheekadii halkii dambe markii ka xumaatay qof baa xumeeya qof baana sheekada uu xumeeya wanaajin karana Saleeman Dheer uu wanaajiyay oo dhankayga caadi waxaan ku dhaafsamay uu sameeyay laakiin furli iska daa waxaan ku dhaaf saaxiib sameeyay sameeyay anigiibu caayo aflagaadiyay khalad iyo anigi daalaci raacu labu jilay u tilmaamay tii markaa qofku markuu ku raado birkimaata inaad birkima caadi noqoto weeyaan inkastoo laga qurux badan yahay laakiin waxa aniga ugu kalifay xanaaqi baa igu kalifay furli markuu u arkay inaanu cadow ku nahay runta sheegaysa runtuna dadku way damaqdaa ma garanaysaa marka qofkan uu bil aadan runtii Soomaalina weeyaan oo Soomaali runtu way damaqday aniga waxay ku tilmaameen in Ethiopian Oromo ah horta Oromadu waa dad muslimiina badankoodu waana dad Soomaalida xitaa yani maxaan ku raahdaa sidii maanta halkan ku yihiin dhulkeena Soomaalida markay ku yihiin Oromadu Soomaaliduna waxaan aaminsanahay in dhulalka kale iyaguna sidaas si lamida ama ka xun ay ku yihiin
oromada horta waa dad islaama, waa dad jira, waa dad ilaahay abuurtay, waa dad xagga ilaahay aan uga simannahay, cay ay leeyihin ma jirto, xumaan ay leeyihin ma jirto. dad kasta oo ilaahay abuurna xumaan iyo samaan buu leeyahay, dad urayna way leeyihin, dad uskagana way leeyihin, dad nadiifna way leeyihin, dad wanaagsan way leeyihin, dad xunna way leeyihin. marka oromaduna waa iska saasun, inteeda qulunka haddaad aragtay inteeda ka wanaagsan baa ka badan. anu ma dee yani ma difaacay, laakiinse wixii runa un baa runa. aniga oromiga anu oromo horta miyi waxaan ahayna dee dushaydaasay ku sawiranta waa la wada ogyahay. balse laakiin adigoo xarshin ka imi oo shalay tolo gaariga dhiga dheeraha kasoo degay, xarshin ma aha maxay meesha yarada foosha xumeede magaca nooca kale silluuni ee dameeraha lagu raaci jiray, cali xaydh alxaydh ma mise cali xaydh bee gaari xitaa tagaa ma jiro, gaari tagaa maba jiraba. waxaa lasii raacaa shaambooyada Jabuuti kusii socda ayaa lasii raacaa kar dhiga dheerana waanu ka darninkaasi. xaggaasaad ka timi shalay mise anaga naleeday oromaate na wax isku falani weyn baatay, wax caadi iska dhigo maan jecleen wallahi inaan kaafligaadeeyo. balse laakiin waxaad igu kalifaysa weeyaan. balse laakiin waxaan ku ballan qaadaya haddaad intan kasii darto ood kasii kulayliso wallaahi oo bilaahi oo tala in anigana intan kale kululaanayso. waad bootaynaysaa, waxaad leedahay cagaayagaad hoos timanaysaan. anu maanaa kuba raali geliyeyba war midh kaa raalli ahaa neef iyo neefa kala jirin. kan lehees kin jaamac leedahay, kan lehees wiilka casiliyaaniga ay soo qaadani, waxaad leedoo dee raganimo anigii soo qaado. soo aad gartay ma yacquub yara malaa kuu dhiiba hadallada, yacquub yara kaa maskax badan baan malaynayaa, caadi iska dhig nin neef faatay nin weyn waatay. soo aad gartay ma teeda kale waxbay sheekadaan idiin soo gabagabeeyo. markaa qofka qaldan waad arkaysaan. Saleebaan Dheere markuu fiideo soo duubay, isla fiideo jawaabo daqiiqad baa inuu dhaxayn furin la soo jawaabay, uu caayayo waan yaabay munaadkiisan kari waay. Saleebaan Dheere guriga saaxiib waxaan sameynaya anu waxaan nin reer Burca gobolkii Raga dee inaan ka yarin waxa igu sameeyeen waa laga qurux badan yahay. shalay buu ka yimi cali xaydh aniga saa ay leeyahay. gobolka Ragana waxaa lagu yaqaanaa murtida iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo raganimada iyo kala dambeynta iyo wanaagga. balse laakiin inuu ka yar waxaas sameeyo waa wax aad looga qurux badan yahay. waxaan ku leeyahay haddaad kasii darto rag baanu nahay, nin ragu ilaahay ga dhigay. Saleebaan Dheere sheekada ka saar oo raxmo kaba saar kumaba jiraanba labadeenina taagan tahay meesha adaa ku bii, adaa ku hoogi, adaa ku kalaan kali. soo waxaad garatay ma anigana mar dambe haddaad iisoo joogto amaad afkayga soo gasho war intan kaa aamusi kari waan kaa aamusan, intaan afkayga qabsan kari waan qabsan. soo waxaad garatay ma haddaad sii jawaabtad hadalka sii jaqjaqdo anna adaan ku jaqi. waxaan kale kuu sheegaya aan kuu sheegayan ku leeyahay iga dhegeyso iga dhigo. taxadar imika dhowdahay taxadar. waxba annagaa noo bootayn. waxaanu ku nidhi cadow baa jira, nacab baa jira, dad xaasidiinaa jira, dad waxaa jira ku faraxsan waxa xaggan ka dhex dhacaya. balse laakiin haddii aad iga dhimatay aniga waxba ii tiri mayso, waxbana iima tihid. dadka kaa wanaagsan ayaa kaa badan. commentiyadiisa waxaa loo soo qoraya aad ilaah baad ku dhaartay aad yaabaysan. heer wuxuu gaaray confuse commentiyada ka qaaday uu dadkii isaga flowerska waxa uu caayay ay reer Burcana ka mid ahaayeen. aniga oran doontaa reer Burcada ku daysa kuma dirayaan reer Burco. balse laakiin wax runaa baa jirta intii ogbay ogtay commentiga ku soo qoray waliba dadka kale sii ogaadaan. aad baan idin salaamay dhamaantiin. haddaad jeceshiin su'aalaha inaad soo weydiin bartayda Instagram-ka iga soo weydiiya. su'aalo badan oo idin ka soo jawaabi doona insha Allah taala fiidiyoona ka soo sameynaya.